ورفر حل وهذا صدعي نكي دلي مامada ilaa gabdhood alxamdulillah u jeedin buu la helay ka soo qaad maanta adiga hooyada iyo labada walaal dilay sideen qolaheed otar mar ninkan markii uu xabsi ka soo fakaday ayaa dil ka bilowday dalka Kenya ninkan waxa gacantiisa ku maqan konton naag oo naagtiisa ay kamid tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قال واحد رجال هذا كعفمات قومنتين تم مقالك السنة ذاك داود دونتان واحد الله جماعة وناكسن وما خير السن إلهي هون حرست دمام با إن خرابة دينا دمام مسلمين تا إن وقرب مقالك نولا جرى جانا كسبسكرايب شاشة ده بقولس أوجه نغايبتكم متى وصل دعاء الصومالي نيرو إلهي أمان سد يكوي الجرى إلهي جنة فتوس كورابي وياي وحاج عنت الوصول دجال ليه هاي نين الله بدنا إنه كدم بقبله الجرى نيجان أوجدان bishii Agosto ee sanadkan ayuu ka baxsaday xabsiyada dalka Kenya kadib markii uu qirtay inuu gowracay in ka badan 42 dumar ah waa nin dhigcab ah oo hore dad u soo laayay ninka markada ka baxsaday xabsiga Kenya waxay saashalay in haween kale uu sii gowraco waxa leeyahay markii saaka ka dambeeyay gabdhihii la gowracay ninkan maadaama uu horeyba u qirtay in 40 dumar ah oo gowracay iminkana gabdhaha la gowracay ee ku soo beegmeen xilligii isaga xabsiga laga waayay oo xilli uu baxsaday gacanta lagu soo dhigay markaa lahaa shabkado waaweyn aan Nairobi ku jiro oo dadka qashta oo u dhoofiyo dibadaasi dad badan oo walaalaha waxay u maleynayaan in aan iska hadlaayo oo been sheegayo marka ninkan boqolkiiba 99 isaga loo badinayaa inuu ka dambeeyay gabdhahaasi maadaama markii horeba isaga uu ahaa qofkii gowracay in ka badan 40 dumar ah xaaladda Nairobi waa kacsan tahay xaaladda Nairobi wali waa sidata ninka marka warbixin waxa jirta markuu xabsi ka baxsanayay ee ka diyaarisay BBC-da warbixintaas ninka wuxuu ku qirinayay inuu gowracay in ka badan 40 dumar ah markuu baxsadane 6 dumar ah ayaa la sii gowracay oo gabdhahaasi ay ku jiraan ninka marka dib loo soo qabtay leeyahay maalmahan la raadinay waa la soo qabtay boreesa la yeelo doona 99 in gabdhahan isaga leh oo gowracay ayay u badan tahay animka waxa balanaa in update kasta idin siiyo wax walba ku soo kordho muuqaalada sakan ina idin kula wadaago waxa la daawatiin marka hadda ninkan waa kuma warbixin wala laga diyaariyay ninkan magaciisa dhameystiran iyo meesho gabdhahan ku gowracay ila daawada iyo muuqaalada ugu dambeeyay marka dhameystiin kadib bal commentiga wax kale leed muuqaalkaas in wadaag ورفر حل وهذا صدعي نكي دلي مامada ilaa gabdhood alxamdulillah u jeedin buu la helay ka soo qaad maanta adiga hooyada iyo labada walaal dilay sideen qolaheed otar marka koowaad waalidiintu waxa leeyahay oo Soomaali wali joogan oo ilmooda Nairobi jiraan waxa leeyahay waxaan shalay soo arkay iyo waxa halay soo arkay isla saaka Nairobi kiimaanay waxa hal shalay soo arkay wax macquul gal maan xitaa shalay video soo dhigin Nairobi aad waxa soo arkay wax macquul gal maan maamo walba iyo maxallahay aabo walba wuxuu baxsanayo wuxuu Nairobi soo wadanay gabadhiis mise ilmihiisa ku soo wadanay wiil iyo gabarna dadkaas u sameeyeen oo dad waxa waaye oo naxariis dare ah wixii aaminsan waxa waa Soomaalidan wadan Kenya dhibaato ku haysta camal waa codsuwaaye qof waliba oo waxa leeyahay maamo mise waalidiin walba waxa leeyahay gabadhiina day joogan mas'uuliyiinta day joogan Nairobi ku soo wata Nairobi waxa meel halis ah mid kale ninkan markii uu xabsi ka soo fakaday ayaa dil ka bilowday dalka Kenya ninkan waxa gacantiisa ku maqan konton naag oo naagtiisa ay kamid tahay marka waxa la leeyahay hay'adda kale Soomaali kaliya muxuu u beegsanaa ninkan anaga waxa uu sheegnay macnaha in lacag lagu soo siiyay Soomaalida inuu dhameeyo 3 qof oo dumar ah gacantiisa ku maqan ninkan waxa laga yaabaa in la isdhahay Soomaalida hadii sidaan ku sii socoto dalka Kenya ayada gacanta ku dhigayso sababtoo ah ganacsiga gacanta ku dhignay hatta dhismayaal Soomaalida ka samaysatay Kenya macnaha gacanta ku hena marka waxa la dhahay marka Soomaalida hadii saan ku sii socoto wadanka wanaga qabsanay marka in qalqal lagu galshaa waa muhiim marka Soomaalida ha isku tashato ha isku tiirsanaato wadankaas sidii lagu sii qulqulaayay meesha waa lagu dhibsanaa walal dhulkaaga ma aha dhulkaaga soo gubay wadan kale ma ahay waa kala kacsanaa dhahay yaa kay ilaal hatta dad madax noo ah wadankaas dhismo ka samaystay
booliiska dalka Kenya ayaa talaadada maanta bilaabay baadi goob nin ay sheegeen inuu qartay inuu dilay 42 haween ah oo uu jarjaray kaasi oo ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi. ninkan ayaa waxa uu heliyay 12 qof oo kale oo maxaabiis ahaa. Colin Jumesi oo 33 jir ah oo ay booliisku tilmaameen inuu yahay dhiig-yacab madaxa lagaga jiro ayaa la xiray bishii hore kadib markii la helay meydad si xun loo googooyay meel qashinana lagu daadiyay goobtaasi oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Nairobi. afayeenka booliiska Kenya Razila Onyango ayaa wakaaladda wararka FB u sheegay inay socdaan baadhitoonno iyo howlgallo ballaaran oo lagu soo qabanayo 13 qof oo la tuhunsan yahay. booliisku waxa kale oo sheegeen inay ogaadeen in xabsiga laga baxsaday kadib markii askartu ay abaara 5 aroornimo tageen qolalkii ay ku xidhnaayeen dadkani xilligii quraacda. dadka baxsaday ayaa ahaa Jumesi iyo 12 qof oo kale oo booliisku ay ku sheegeen inay ahaayeen dad u dhashay dalka Eritrea kuwaas oo u xidhnaa iyaga oo dalka si sharci darro ah ku soo galay. saldhigga booliiska ee laga baxsaday ayaa ku yaala xaafadda Girigiri ee suuqa weyn ee Nairobi, halkaas oo ay ku yaalaan xafiiska hay'adda qaramada midoobay iyo safaaradaha dalal badan oo caalamka ah. waa markii labaad oo muddo 6 bilood gudahood oo baxsado eedaysane loo haysto kiis aad u weyn dalka Kenya. kusoo mooday meeshaan ay gabdhaha midkooda yaalaan. gabdhaha mid weyn oo tan joogto maxaa la dhahaa waxa lagu sheegay majalka soonan laga makeen midkooda la soo wadaa la leeyahay. labada gabdhood oo kale inta yaalaan waxa dadana loo qabtay oo information ama cusubna ma hayno. marka ilaa gabdhaha ilaa aan riboodnay oo riboodkooda ilaa habeenkii telefoonadooda iyo wararkooda aan bixinay iyo ilaa haddeertan wax in hawa yaraatee aan ku qanacno ama hataa wax yar ah hataa telefoonka gabadha shalay uu shaqeynay u furnaa maxaa la dhahaa oo qolada way shiteen dib u shiteen wax ilaahay untada information oo wax yar hata ha ahaatee daliilaadna waxba hadana lama sheegin lama tusin. wali wariyaasha afka maxaa la dhahaa sooxiliga ku hadlan Englishkana waxay naga dalbayaan in information dheeraan annaga bixino. annaga wax qaflada nagu dhacday gabdhahana waa la afduubtay hooyadood baa markii hore la afduubtay ayaga yaraana waa laga daba qaaday waana la wada dilay. wax information annaga aan heli karno CCTV gaas iyo telefoonadii isku xiriirayeen oo macnaha ka badan ma hayno annaga. annaga dareenkeena dad waxa masiibo ku dhacday muslim baan nahay horta awalan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaan buu nageliyay oo dad waxaan nahay muslim ah qadarkana waan rumaysanahay oo dad maanta qadarkii macnaha ka badsan manihin laakiin waan dhibanahay oo waxaan nahay dad masiibo ku dhacday. dad waxa dumar laga dilay waa gabdho yar yar oo innocent-ana laga dilay hooyadood dadka waa la gogoysay xun baa loo galay. dad hada dambi gal oo maanta aan ku hubna ama shaqaysto ama ganacsad ahaan ma gabadha waa arday tan kale waa yar tahay. marka dad dhiban waa nahay aad baa dhibanaan nahay. dad badan oo maxaa la dhahaa macluumaad fara badan waan bixinay inta tabarteena ah. maantana hadda dadku markay connection ku jiraan oo ay telefoonada maxaa la dhahaa maanta la dhageysanay gabadha hadlays markay bixayso mid yar waa la heli karaa maanta macluumaadku fudud yahay. ma fahamtay gabadha yarta markay bixayso habarta tiraadina way hadlayeen gabdhaha waana la qaatay wadana CCTV uu sheegaya. marka wallaahi dad horta ilaahay wuxuu noo qadaray waan ku qanacsanaa qadarka ilaahay oo kama badsanin oo wuxuu ilaahay noo qoro waaye laakiin in waxna loo qabto oo maxaa la dhahaa dadka madaxda Soomaalida oo Kenya maxaa la dhahaa maanta ugu magacaaban MPda ha ahaatay iyo xildhibaanada inay wax noo qabtaan ay naga qanciyaan arrintan aad iyo aad ayaan u jeclaan lahayn. wallaahi waanan dhibanaan u nahay oo gabdhahana sida loo galay waxa bini'aadam fiirsan kara ma ahan laakiin qadarka ilaahay iyo wuxuu ilaahay noo qadaray wax kun sano naga weyn wixii kun sano naga weyn hadda waxaan marna waxaan baaqalnaha ma ahan. ma fahanteen marka anaga waraysi aan bixinan macluumaadna hayno dad qalfad ku dhacdaana waxaana wax qalfad ku dhacay gabdhihii hataa wayna soo waceen habeenkii telefoonada anaga way naga dansanaa xilli dambe ay wactamayeen ilaa 10 saac gabadha yarta way soo wactamaysay telefoonada lagama qabanin oo anaga ilaahay nooma qadaray inaan qabano oo waxay sheegi lahayd ama waalidi lahayd dhahdo ama madax furasho ay dhihi lahayd ilaahay nooma qadaray inaan gabadhii aan koolka ka qabano. marka walaalayaal hadda wax noo qabanaysaan wixii in laga run sheegaa fiican dadkana hadda dad waxaan shaqadooda ay tahayna way jirtaa oo maxaa la dhahaa wixii tabaraaci kara waxaan maanta sida hore ma wax walba wax banaanka yaalo waay. ma fahanteen way fududaatay sida hore waagoo dad gacmo dad telefoon ku wada xiriiray oo gaari wato
ما ضد محل ده حتى هيسن وح محل ده حرير أيام السوق قبته ضد وده هاد لا أو كاميرا كوسع صيب حيو إلا حلقنا إيه وإحنا لقسين ومحل ده وربحنا بين نصيب درنا وقتها والله لكن هدنا واسك سمرينا ما فهمت marka insha Allah inta wax ka badan ma hayo hadda wax la qabto ma jiro ku jira wali waqtigan uu socda aniga hadda Mombasa aan ka imaaday oo inta deegaan u malihi oo ma sii joogin marka waqtigan hadda wali waxa waay wixii ku jiraan ilaa darashada la keenay maantay waxa macnaha wax la qaban karo shaqo la qaban karo oo saaka la qaban karo ilaa hadda ma loo qabanin wali macluumaadku uu dhiman yahay leeyahay anaga meesha iska gabranahay marka waxaan jeclaan lahaa in waxna loo qabto oo si islaamnimo waxna loo qabto dad muslim baan nahay iyo dadka shaqadana macnaha u xil saaran in la hadlo oo wixii waajib idinka laftiin idin yaalo waaye ma fahantay dad Soomaali dibka uu nabad haystaa in kastoo aniga ugu dhaco maanta aan dhihi karin maxaa la dhahaa meesha aniga xanuunka aan dareemayo ila dareemayo 180 aan dhihi karin haddana magaci waan wada nahay dad walaal baan nahay dad muslim baan nahay marka waxaan jeclaanahay gabdhahaas iyo kuwa kale oo anigoo kale iska warbixinayo kuwa kalma xanuunka meel kasta waa ka jira kale ma ana aaminsan wixii hor ani qof asaagayga ama Soomaali ah lagu qaban waaye in maanta aan helay nasiib ilaahay inaan ku helo iyo xaq ilaahay ii soo saar ma ogi laakiin hortaydan waa la dhibana gadaashaydan waa la dhibanaan doona haddana dhibku taagan yahay marka insha Allah waxaan jeclaan lahaa in arintan hadda joogtiin meesha fadhiin maxaasidiisiin hadda waxaan sugaynaa gabadhii oo nala leeyahay majaakoosa laga soo kaxaynaa gabadhi weyneed oo halka meedkeeda ay geeyeen gabdhahan waa la isla qaato isku meel baa laga wada qaaday kuwa yaryarna xariirka gabadhaas un bay ku baxeen oo habartooda ay raadinayeen ama hooyada ay raadinayeen haddana waa wax maamuleer xabad meel baa lagu tuuray ma fahantay taasna hatta waxay sheegaysaa in waqtiga intii macluumaadka la raadinayo oo waqtiga dib u sii dhacayo laana marka anaga information kooda ama aan qoran report kooda hadii la raadin lahaa gabdhaha waxa la dhihi lahayd inay wax nolol un loogu tago dib baa loo dhigay waqtigii 24 saacadood kadib baa la yiri baan liiso jawaab kara ama arintiina la geli kara wixii caajil ama warkii cusub hadda oo degdeg ah waxa marka laga maqan haddana isla hadda wixii wali waxa noqday wixii uu sii dib dhacay marka dambeys waxa jaana siinaysan marka tuugadii شرع عصر كتلفون كفرته مقالة يقولوا جوكتو أي دب جانس أصينا كان أي وقت إسكوب بانجايسو أي ما يكون بحثة أما ودن كلا أي هش ويحو في عينته عسبي هاي ويحو حلقة قبل كره لكن واحد الله صح هذا أنا جي دبنا سؤال نلارسه نقدر نلده محاد هيسيني مع قبتين أنا إذا كان كسونا وإحنا قاتين إذا كان أنا قدمنا وصلنا قرنسينا وحي إذا كان كسونا أنا قدمنا ويدين إنسان ما كان أنا ورمي هاينا هل سؤال بنقواهم إن قبلها ذنبيين أو جاري راعيين gaariga raaceen iyaga ma dalbadeen mise ma tagnaa ana waxaan aaminsanahay gabadha hooyad baan ahay gabadha weyn gabadha maxay guri ka baxda 6 saac iyo 50 daqiiqo waana gabar la soo wacay ma ahan gabar ayada wacatay gaari xilliga ma wacan karta awood uma lahan ma fahantay waxaan aaminsanahay cid Soomaalidu oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gilgilatay kana xanuunsatay marka waan diidanahay ma ogolaanayno dawladana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ah ee magaalada wareegaya nimankaasi dhowr waa niman gang oo wada tashaday 3 meelood bay meedka ku tuureen shalayna labadii gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay South Sea jirkii ugu horeeyay waxay ku tuureen Parklands jirkii kale waxay ku tuureen Bahati kii saddexaadna Machakos bay geeyeen gacmahana way ka gooyeen gacmihii baa shalay laga helay South Sea marka dad yar ma aha waa dad magaalada oo dhan wareegaya dawladana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato aniga iyo senatorka Nairobi Edwin Sifuna oo ila socda waxaan iminka ka soo baxnay taliyaha guud ee booliiska wuxuuna noo sheegay 2014 waxaa xasuustaa xitaa mataqaanaa xilliyada markay taariikhda ay marayso fiiriya taariikh 26 27 meelaha markay marayso ee taariikhda ay dhamaanayso ee bish ay si dhamaanayso wallahi waxaan ku dhahay waa kirada laga diyaarinaa kirada waxa xasuustaa wadada in lagu qabto wadada miyu anoo saa u socdo teleefonkayga halka toori laga saaray teleefonkayga laga qaato dadka saa u daawarayaan markaas waxay ku leeyihiin Amar Rashid waraa ninka wadanka nabadda ka dhigay waraa business kan waxa dadku u furay oo mataqaanay dad badan waxa maskaxdooda soo galiyay inay business ay furtaan Ahmed Rashid ka dambeeyay ma fahmino wallahi bil oo tala kulay ninkan haduu asaga ahaan dad badan ganacsi ma furan laan lacagtooda jeebka ku haysan laan way fahamtano
mataqaanaa culamo badan oo masaajidka aadayan 8 saac telefoonada laga qaadan jiray dad badan oo guriyooda ku tukan jiray oo haddana masaajidada aadayaan fiiri ninkaas ajirka uu sameeyay bal fiiri